fariimaha rasuullada cutubka 8 oo kolkii aanu wada baxsannay ayaan ogaanay in jasiiraddaas la yidhaahdo malita oo berberiyiintii waxayna tuseen raxmad khaasa waayo iyagu waxay shideen dab oo dhammaantayana way na soo dhoweeyeen sababtuna waa roobkii wakhtigaas jiray daraaddiis iyo dhaxantii daraaddeed laakiin bawlos ayaa soo urushay xaabo badan oo wuxuu saaray dabka kolkaasaa kulaylka daraaddiis waxaa soo baxay jilbis oo gacantiisuu ku dhegay oo berberiyiintii markay arkeen baalkii gacantiisa ka laalaaday ayaa midkoodba wuxuu midka kale ku yidhi shaki la'aan ninkani waa nin dhiig qaba waayo in kastoo uu baddii nabdoonaan kaga baxsaday haddana xaqnimadu uma oggolaan inuu sii noolaado habase yeeshee baalkii ayuu dabka iskaga tuuray oo innaba waxyeelo ma gaadhin isagii laakiin iyagii waxay filanayeen inuu haddiiba bararo ama uu markiiba dhaco isagoo meyda laakiin kolkii ay wakhti dheer dhowrayeen oo ay arkeen inaan waxyeelo ku dhicin isagii ayay fikirradoodii beddeleen oo waxay isku yidhaahdeen isagu waa ilaah haddaba meeshaas waxaa u dhowaa dhulal uu leeyahay ninkii jasiiradda madaxda u ah oo magaciisa lo odhan jiray bobliyos kaasuna waa na soo dhoweeyey oo intii 3 maalmood ayuu si sharaf ah noo marti qaaday oo waxay noqotay in bobliyos aabbihiis jiibsaday isagoo qandho iyo dabadhiig qaba markaasaa bawlos isagii u galay oo intuu u duceeyey ayuu gacmihiisii saaray oo wuu bogsiiyey isagii oo markii waxaas la sameeyey dabadeed ayaa intii kale oo cudurro qabtay oo jasiiraddii joogtay oo dhammu wada yimaadeen oo iyana waa la bogsiiyey oo kuwaasina waxay nagu sharfeen sharaf badan oo markii aanu dhoofaynay ayay doonnida noo saareen wax alla wixii aanu u baahnayn 3 bilood dabadeed waxaannu ku dhoofnay doonni iskandariya ka timi oo wakhtigii qabowga jasiiraddii joogtay taasoo sumaddeedii ahayd walaalihii mataanaha markaasaannu nimid surakus oo 3 maalmood ayaan halkaasii joognay oo halkaasaannu ka wareegnay oo waxaannu gaadhnay regiyoon oo maalin dabadeed waxaa kacday dabayl koonfureed oo maalintii labaadna waxaannu nimid botiyolos oo halkaas waxaan ka helnay walaalo oo waxay naga baryeen inaan 7 maalmood iyaga la sii joogno oo sidaas ayaan rooma ku nimid oo halkaasna walaalihii markii ay maqleen warkayagii ayay u soo baxeen inay naga hor yimaadaan oo waxay soo gaadheen tan iyo suuqa abiyuus iyo 3 makaayadood oo bawlosna markuu arkay iyagii ayuu ilaah ku mahadnaqay oo sii dhiranaaday oo markii aanu rooma galnay ayaa bawlos waxaa loo oggolaaday inuu keli ahaantiis u joogo isaga iyo askarigii dhowrayey oo waxay noqotay in 3 maalmood dabadeed uu isugu wada yeedhay kuwii yuhuudda ugu waaweynaa oo kolkii ay u yimaadeen ayuu ku yidhi iyagii walaalayaalow anigu in kastoo aanan wax xumaana ku samayn dadkii ama caadooyinkii awowayaashintoonna haddana anoo maxbuusa ayaa waxaa layga soo waday yeruusaalem oo waxaa la ii gacan geliyey reer rooma iyaguna markii ay ii imtixaameen waxay damceen inay iska kaydaayaan maxaa yeelay sabab dhimasho istaahisha aanay igu jirin laakiin yuhuuddu markay taas khilaafeen ayaa waxaa dirqi igu noqotay inaan kaysar u ashkatoogo taasuna ma ahaan inaan haystay wax aan quruuntayda ku dacwaynayo sababtaas daraaddeed ayaan idinku yeedhay inaan idin arko oo aan idinla hadlo maxaa yeelay rajadii reer binu israa'iil sugayaan daraaddeed ayaan silsiladahan ugu xidhanahay oo iyana waxay isagii ku yidhaahdeen annagu wax warqadaa oo adiga kugu saabsan yuhuudiya kama aanu helin oo waxyaalihii midkoodna xaggaas kama iman noomana soo sheegin ama kaama soo warramin xumaato laakiin waxaannu jeclaan lahayn inaannu
kaa maqallo waxaad u malaynaysid maxaa yeelay xagga dariiqadan waxaannu ka ognahay in meel walba ka gees ahaan lagaga hadlo oo intay maalin ka ballameen ayay hoygiisi ugu yimaadeen iyagoo tiro badan oo isna xaalkii buu ugu sii caddeeyey oo u marag furay boqortooyada ilaah oo wuxuu iyagii ku waaniyey wax ciise ku saabsan oo ku yaalla sharciga muuse iyo nebiyadii tan iyo aroortii ilaa fiidkii oo qaar baa rumaystay waxyaalihii lagu hadlay qaar kalena way rumaysan waayeen oo intay dhexdooda ka heshin waayeen ayay kala tageen bawlose wax keliya ayuu ku hadlay isagoo leh ruuxa quduuska si hagaagsan ayuu uga dhex hadlay nebi isaayos markuu awoowayaashin la hadlay oo ku yidhi adigu dadka u tag oo waxaad ku tidhaahdaa maqal baad ku maqli doontaan mana garan doontaan idinkoo arkaya waxbaad arki doontaan idinnama dhaadhici doonto waayo dadkan qalbigoodu waa qallafsan yahay oo dhib bay dhegahooda wax ugu maqlaan indhahoodana way isku qabteen si aanay indhaha wax ugu arkin oo dhegaha wax ugu maqlin oo qalbiga wax uga garan si aanay u soo noqon oo aanan u bogsiin haddaba idinku waxaad ogaataan in badbaadadan ilaa loo soo diray dadkaan yuhuudda ahayn oo iyaguna way maqli doonaan oo markuu waxyaalahaas ku yidhi ayaa yuhuuddii iska tageen iyagoo isla murmaya oo 2 sannadood oo dhan ayuu iska deganaa hooy uu isagu kiraystay oo kulli intii uu soo gashay oo dhanna wuu soo wada dhoweeyey oo isagoo aad u dhiiran ayuu wuxuu ku wacdiyi jiray boqortooyada ilaah wuxuuna bari jiray waxyaalaha ku saabsan rabbi ciise masiix cidnana ma uu diidin